bismillah asxaabta aad baan idin salaamayaa. Waxaan rabaa maanta inaan sameyno 6 ama 7 trade hadduu alla idmo, anagoo isticmaalayna markaa sida caadada noo ahayd candle psychology. Runtii asxaab baa iga codsatay in sii wadno oo candle psychology-ga videos badan kasoo duubno. Okay, aan isla soconno asxaabta. maanta saa ujeedaan waxa weeyaan waa OTC. saa ujeedaan maanta waxa weeyaan waa OTC, waa sabti axad labada beri. waxa weeyaan suuqu ma xirna, laakiin suuq fadhiya maaha. marka OTC-du haddii aynu markaa brokerka IQ option-ka aynu joogno waa lagu shaqaystaa, unless laakiin qofku inuu experience iyo khibrad dheer uu leeyahay OTC-da. Okay, trade koowaad marka hore aan sameyno analyze asxaabta. waxaan dhiganaynaa level okay. halkan ayaa level noo ah asxaabta, halkan ayaa level noo ah. Okay, levelkii waynu dhiganay. Good. suuqa saa ujeedaan halkan wuxuu ka yahay down trend, halkanna wuxuu ka yahay up trend. up trend ayuu ka yahay. Okay, ujeedaan halkan inuu up trend ka yahay. halkaa laga soo bilaabo soo kacay suuqii, soo kacay kor ayuu markaa suuqii u socdaa. suuq up trend ah. Okay, is a new high ayuu sameystay candle-kan. ma ka warsugaynaa ilaa aan ka helno suuq perfect ah oo aan lagu trade gareyn karo asxaabta. ilaa aanu ka helno suuq perfect ah oo lagu trade gareyn karo. Okay, noo gaaray levelkii. Okay, strong level. This sellers ayaa kasoo galay halkan, sidoo kale sellers ayaa kasoo galay. Also this strong sellers sellers level adag. Good. Okay, rejection ii muuqda. sell ayaan suuqii u galay. Good. ma fiirinaynaa marka sida waxay u dhacaan. Let's see. sababta suuqan uu galay asxaabta waxa weeyaan saa ujeedaan waxaanu dhiganay level halkan SNR level sellers area ee halkan aad ujeedaan. halkan waxaa kale kasoo galay suuqii sellers. also halkan sellers ayaa kasoo galay like that. halkan sellers ayaa kasoo galay, haddana waa kana strong sellers. so levelka markuu noo gaaro markaa suuqan waxaan aragnay rejection kan buyga ah, kanalkan buyga oo rejection sameeyey. also markaa sidaas waxaan ugu soo galnay suuqa sell. waan ku asxaabta saa ujeedaan. okay, another suuq aynu sameysano analyze fiican aynu sameyno. okay, waxaan dhiganaynaa level
okay, halkaas ayaa level inoo ah, halkaas ayaa level inoo ah. Okay, suuqan sidoo kale waxaa ujeedaan waa USD iyo CHF. halkan wuxuu ka yahay uptrend. Okay, rejection. suuqii sal ayaan usoo galnay. Okay, soo ujeedaan asxaabta, suuqii labaad ayaan galnay, trade labaad eegeynaa wuxuu ku dhamaado. eegeynaa wuxuu ku dhamaado suuqan guys. Okay asxaabta, khadka aad u culus wuxuu yahay aad u culus. Good. USD CHF, USD CHF. Okay, inoo soo saar lacag kale euro iyo GBP. Okay, aan sameynaa haddana analyze. Okay, waxaa ujeedaan suuqan halkan wuxuu ka yahay downtrend, waa major downtrend, major downtrend, major downtrend. Okay, major downtrend, waa major downtrend level aan digano. Okay, halkan wuxuu ka yahay minor uptrend suuqa asxaabta, halkan wuxuu ka yahay minor uptrend. soo ujeedaan halkan wuxuu ka yahay minor uptrend, suuqa halkan wuxuu ka yahay minor uptrend. majorkii suuqana waxaa weeyaan waa downtrend. Okay, aynu ka sugno ilaa aynu ka helno candle perfect aanu ku trade gareyno. saan ii sheegnay hore asxaabta, waxaa weeyaan suuqa wuxuu u baahan yahay in trade walba aad oga fiirsato, sababtoo ah haddaad ka fiirsanin candle psychology-ga khasaarahaaga ayaa badnaanaya. Okay, this is the minor uptrend. suuqa buy ayaan galay asxaabta, aynu aragno waxa dhaca. suuqaas buy ayaan galay, huge rejection. Okay, candle
buy ayaa samaysmay xoog badan. Candle buy xoog badan ayaa samaysmay. Good. Strong candle. Also this is halkan waa level. Level. Also this is halkan waa level. Euro iyo GBP aan marka la soo baxsano. Euro iyo GBP. Good. Yes, soo jeedaan. Also halkan waa level. Sales area. Soo jeedaan. Level. Okay. Strong candle buys ayaa halkan nooga muuqda. This was strong candle buy. Haddana candle buy strong ayaa sii socda. Suuqa halkan wuxuu ka yahay sidaan hore ku sheegnay asxaabta waa minor uptrend. Suuqa majorkiisa waa downtrend. Okay. Also this is a level. Halkaas. Okay. Kawar sugno. Suuqaada hubin asxaabta iskuma galo. Suuqaada hubin lama galo asxaabta. Okay. Inkaas ayaa level noo ah. Mar kale. Okay. Waliba kan stronga. Kuma lahan. Good. Waxaan u galay suuqii haddana guys buy ayaan u galay. Let's see wixii dhacayno aragno. Okay. Okay. Suuqan waan ku khasaarnay. Waxa weeyaan waa levelkii aan dhiganay. Is a level. Suuqii halkan saleski ayaa interest gareynay. Saleski ayaa soo galay. Never mind. Okay, suuq kala eegno. Suuq aan kala baanu baarano. Okay, iga tag badan. Okay. Major downtrend. Is a continuation sign. Okay, continuation sign. Okay. Suuqa asxaabta sell ayaan galnay. Let's okay, haddii kan haddaan dhammayno tradekan
wuxuu noqonayaa last trade waa la idmo last trade ayuu noqonayaa waxaanu galnay markaa 5 trade noqonaysaa trade bay noqonaysaa very good okay isana waan ku guuleysanay asxaabta okay aynu sharaxna haddaba mid kasta sababta aynu u galnay sababtidan guys waxaynu galnay maanta 5 trade afar waa win halna waa loss okay trade-ka xaggeenu ka bilaabno trade-ka koowaad sababta aynu u galnay asxaabta waxaa weeyaan suuqan South Sudan halkan wuxuu ka yahay downtrend halkan wuxuu ka yahay suuqa downtrend so halkan ayaynu waxaan dhiganay level ayaynu dhiganay this is a level scenario level okay this is a level waana level aad u adag oo aad u adag oo level aad u xoog badan so sidoo kale jidaan halkan waxa uu jidaan sales ayaa ka soo galay also halkan waxa uu jidaan sales ayaa ka soo galay halkan u soo caadana halkan u jidaan waxa ka soo galay strong sellers okay halkan waxa jidaan sales ayaa ka soo galay also halkan waxa ka soo galay sellers so asxaabta haddaad aragtaan level oo candle strong ah waxa weeyaan candleka levelkaas wuxuu noqonayaa level aad xoog badan haddaad ku aragtaan levelka strong candles ama sell ama buy ah levelkaas waxa uu aqoonsanaynaa inuu yahay ama loo yaqaanaa strong level asxaabta midaas ka faa'iideysta level haddaad aragtaan oo candle xoog badan sidan oo kale ama buy ahaado ama sell ahaado haddaad ku aragtaan candlekaas wuxuu noqonayaa candle strong ah okay saas awoodeed halkan waxaan u galnay suuqii candlekan wuxuu noo gaaray buy halkaasuu noo gaaray so halkana level ay noo ahayd waxaanu aragnay candlekan buy oo sameeyey rejection also halkan previous candleka xiga candleka wuxuu ahaa sell also halkan sell also halkan sell so suuqii waxaan usoo galnay marka sell haddana innaga og suuqan inuu dib haddana loo celinayo sell ku laabanayo maadaama ah level strong level uu halkan uu yahay sidaas asxaabta ayaan ugu guuleysanay waana u jidaan waxaa soo galay strong sell aad u xoog badan ayaa marka levelkii ayaa laga soo celiyey trade-ka labaad asxaabta saa u jeedaan halkan sidoo kale waxaynu dhiganay level ayaan halkan dhiganay saa u jeedaan levelkan aynu dhiganay sidoo kale waxaad arkaysaan suuqa halkan inuu ka yahay major downtrend halkan wuxuu ka yahay uptrend minor uptrend halkan suuqa wuxuu ka yahay minor uptrend kor ayuu suuqan loo sii socdaa kor ayaa loo sii wadaa u jeedaan kor ayuu sii socdaa halkaas haddana kasoo laabtay so waxaan u galnay markaa maadaama halkan level uu noo ahaa waxaynu u galnay buy ayaan u galnay annagoo ka faa'iidaysanay markaa rejectionska oo suuqa laga celinayo maadaama halkan area ay tahay level kadibna waxaan ka faa'iidaysanay rejectionka asxaabta waana ku faa'iiday marka hore entry waxaan ka galay aad uu meelaha ila fogaaday kadibna haddana suuqii waxaan usoo galay buy hoos ayaan kasoo galay anoo og inuu suuqan rejection u yeelan la celinayo oo biasku halkaas celinayaan candleka
trade-ka saddexaad asxaabta isagana waa faa'iidnay sidoo kale asxaabta suuqan waxaa ujeedaan waa major downtrend waa downtrend suuq aad oo xoos ugu socdo weeyaan oo downtrend ah halkana suuqan wuxuu ka yahay guys halkana suuq wuxuu ka yahay uptrend ujeedaan suuqii uptrend halkan ka yahay so halkan waxaynu aragnaa marka maadaama suuq uptrend yahay also halkan waa level halkan buys halkana buys mar saddexaad halkana buys ka soo galay haddana suuqii uu soo laabtay haddana rejection xog badan oo buys iyo strong candle buy aan aragnay kadibna waxaan usii raacnay suuqii buy halkan level kaas ayaan dhiganay markaan tirigaraynay oo jeedaan so waan strong level halkan this buy halkan kasoo galay haddana buys ayaa halkan kasoo galay mar saddexaad haddana buy halkan kasoo galay waxaan aragnay rejection also halkan rejection so suuqii waxaan usii raacnay maadaama uptrendna uu ahaa buy ayaan usii raacnay asxaabta waanu ku faa'iidnay sababtaas ayaan ugu faa'iidnay okay trade-ka afraad asxaabta sa ujeedaan sidoo kale suuqii waa euro gb isla suuqii hadda aynu ku guuleysanay weeyaan sa ujeedaan uptrend buu suuqaynu ahaa halkan minor uptrend ayuu ka ahaa suuqa majorkiisana wuxuu ahaa downtrend okay halkaas ayuu suuqii inoo gaaray level ayaa marka hore dhiganay halkaas ayaa level inoo ahaa halkaas ayaa level inoo ahaa asxaabta so levelkaas ayaa suuqii laga soo celiyay haddana sales ayaa soo galay sales waxaa soo galay candle sell oo aad u xoog badan ayaa soo galay so this candle isagana waxaa weeyaan waxaa la dhahaa waa reversal sign waa spinny top wuxuu ka mid yahay candlada suuqa ama reversal sameeya ama continuationka sameeya oo suuqii inuu sii socdo caddeeya ama in suuqii marka meeshaas uu ka laaban karo caddeeya so halkan spinny topkan candlekan wuxuu inoo noqonayaa hadda continuation wuxuu inoo caddeynayaa suuqii inuu sii socon karo maadaama halkanna uu kasoo galay strong candle sell ah candle sell aad u xoog badan halkan kasoo galay so sidoo kale wax level ah halkan ma jirin wax level ah halkan ma jirin so waxay noo caddeynaysaa markaa suuqan candlekan wuxuu inoo caddeynayaa candleka hadda ujeedaan falaarta wuxuu inoo caddeynayaa suuqa marka inuu sii soconayo oo continuation sameynayo sida awadeed ayaan suuqa halkan waxaan u galnay sell waana ku faa'iidnay asxaabta marka candladan spinny topka marna waxay caddeeyaan suuqi inuu sii soconayo continuation marna waxay caddeeyaan in suuqii uu laabanayo oo reversal sameynayo kaliya waxay kala duwan yihiin markuu reversal sameynayo waa markuu level spinny topkan candlekan uu level uu joogo hadduu suuqa uu candlekan oo kale uu level joogin oo middle of the trend uu joogo wuxuu caddeynayaa suuqa marka inuu continuation uu sameynayo sida hadda aan uga faa'iideysanay oo kale sell ayaan usii galnay inagoo og inuu continuation suuqan sameyn karo waanu ku faa'iidnay asxaabta okay trade-ka aynu khasaarnay isagana sababta aan u khasaarnay aan isweydiino asxaabta sa ujeedaan islaas waa euro iyo gb suuqan wuxuu ahaa downtrend halkan wuxuu ku ahaa minor uptrend so halkan waxaynoo ahaa level ayuu inoo ahaa so waxaa la rabay markaas suuqan maadaama level yahay probability ugu badan in suuqii uu sellers ay soo geli karaan halkan saa ujeedaan way kasoo galeen
halkan ujeedaan way ka soo galeen sellerskii, halkan ujeedaa sellerskii way ka soo galeen, halkan marka waxaa la rabaa halkan oo kale in sidoo kale aan sell uga soo galno suuqa sidaan ugu faa'iidno, laakiin waxaan sameynay buy ayaan u galnay, khalad oo marka iga dhacay weeyaan. levelkaas ayuu markaa suuqii xushmeeyey, sidaas ayaana ku khasaaray. suuqiina kandalkii wuxuu igu noqday kandal sell ah, maadaama level aan horey u dhigtana uu ahaa kaiser level. halkaas sellerska ayaa kasoo galay, halkan sidoo kale sellerska ayaa kasoo galay, halkan sidoo kale sellerska ayaa kasoo galay, haddana sidoo kale suuqii waxaa la rabaa halkan inuu sellers inaan sellers u galo, soo ma dhicin buy ayaan u galay, khaladaan sameeyey awgeed. way dhici kartaa laakiin khaladka ma badna, mostly haddaad analyskaaga aad iyo aad isaga adkeysid oo xoojisid waxaa badnaanaya sixitaankaaga, laakiin khalad wuu dhici karaa wuuna dhaca. okay, waana ku khasaarnay suuqa asxaabta, never mind, waxaa ka badan intaynu faa'iidnay. 5 trade ayaynu galnay, 4 waa faa'iidnay, halna waana khasaarnay asxaabta. marka 5 trade ayaan maanta saas u galnay. taariikhda maanta waa 9 May, saacadda waa 7:01 duhurnimo iyo rubi. marka asxaabta sidaas oo la socdo insha allahu. marka kasii dambeysa waan badin doonaa tradeyada aan soo geli doono hadduu alla idmo insha allah. please subscribe, share, like iyo comment asxaabta ha lagu dadaalo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.